السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواهدا برنامج كيني محي كولتهاي دقالك قادسية ودقالكو كقول مسلمين تو كقوليستين قالدا فرسيقا لإلهو أما دولة فرسيقا فرسيقو way xanaaqeen oo waxay go'aansadeen in muslimiinta edbiyaan waxay soo ururiyeen 150,000 askari ayay soo ururiyeen markaasay bilaabeen inay u socdaan Madiina al-Munawwara si u weeraraan Umar ibn Khattab ayaa markuu maqlay ayaa uu xanaaqay shirbu sameeyay saxaabadii uu yeeray wuxuu diyaariyay ciidan buu diyaariyay ciidankaas wuxuu uga dhigay hogaamiyahooda wuxuu uga dhigay saxaaba leeyahay an-Nu'man ibn Maqran al-Mazani oo wuxuu yiri Umar ibn Khattab wallahi la uliyanna amrahum rajulan liyakunna awwal al-asinnati idha laqiyaha gadan wuxuu yiri wallahi hadana u diri waayo nin noqonaya hubka ugu horeeya lagu dagaalamayo ama safka ugu horeeya noqonaya maalintu dagaalku bilaamado waana dhacdo tiibay noqotay dagaal la yiraahdo Nahawand magaciisa la yiraahdo ayaa dhacay oo muslimiintu ay ku guuleysteen oo ay noqotay maalintii ay u dhamaatay dawladda Faarisiyada ee taariikhdoodii magacoodiba baabiyay maalintaas ay ahayd laakiin muslimiin badan baa ku istishhaado ku dhintay dagaalkaas iyo saxaabad badan nin kamid ah ciidanka ayaa imi Madiina al-Munawwara markaas wuxuu u bushaareeyay Umar ibn Khattab in muslimiintu ay ku guuleysteen dagaalka عمر بن الخطاب وحو كوريستي النعمان وحو سدوي النعمان وحو استشهادي ونحي المبين ديسا كالتمي وحو إنا لله وإنا إليه راجعون صحابت كالو كوريستي وحو شاقيدتكي كل انتي دقال كاس هبل بعد انتي مركو أركي عمرو مروقيسانو المدين ديسا كقبانيسو أيا ونحي وحو دمعيشا كدا إنو دودوبو حلقة هذا الكوكوشارو وحو كوري هبل يدد فربضانو آنا دكرانين يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيا هذا الكاسو كسي نحي markaasii oohintiisu ka sii dartay markaasuu wuxuu yiri baxay u taraysa garashada Umar bin Khattab baxay ku falayaan Umar bin Khattab inuu garanayo amaanu garanayn haduu ilaahay uu garanayo oo magacooda uu garanayo oo xiriir ilaahay la leeyihiin oo ilaahay sharaf uu siiyay karaamad inay istishhaadaan oo jannada ku galaan baxay taraysa garashada Umar markaasuu ooyay Umar wuxuu uga jeeday hadalkaas baxay taraysa qofku inuu adduunka caan ka noqdo ama magac uu leeyahay ama sumcad uu leeyahay haduu dhinaca ilaahay iyo malaa'ikta iyo samada aana laga garanayn oo aanu caan ka ahayn haduu doono caan ku yahay dunuubtiisa iyo macaasigiisa maxay taraysaa waqtigan aan ku jirno maanta waqtiga like-ka iyo share-ka iyo imsa followers buu qofku ku haysaa YouTube-ka iyo TikTok-ka waa musiibad iyo mushkilad aad u weyn oo dadku aanay fahamsanayn baxay taraysaa milyanka like iyo share aan haysto haduu ilaahay naxariistiisa iga fogeeyay haduu ilaahay ifogeeyay haduu dambigaygu ifogeeyay baxay taraysaa inta share aan haysta hablahan iyo dumarkana TikTok ay soo dhigaya heesahan ku jaasaya iyo xijaabkooda tuuraya intaan xijaabkooda aanay tuurin qalbigooda ay diintii iyo iimaankiiba ka tuureen إلهي سبحانه وتعالى قرآن كأنبياء بدنبو مقعدودا وشيغي يوناقا أي قبتين لكن دور قفنا وشيغي أنا لقرانين ومقعود أنا نقرانين dadka waxa qura ay kaga duwayeen dadka kale wax weeyaan qalbigooda iyo xiriirka Ilaahay ay la lahaayeen taas ba sabab ka dhigtay in Quraanka laga sheekoyo waxay qabteen waa dad samxadda dadka ku dhaxlumay oo aanad garanayn oo dadka aana ka duwanayn haday tay labiskooda iyo shakilkooda dadka ka duwanayn oo laga yaabo dadka beenin ka liitaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri Quraanka بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل أن يقول ربي الله صدق الله العظيم طلعوا نكن وايو مقعي سوامحي سدو إيجي هاي إمس فولورز إمس الشير يلايك بولي وانين أنا لقرنين ورير فرعون كمدا أما قلد فرعون كمدا أو دينتي سي إيمانكي سقرنايا dhinaca dadka ama dadku uma fiirsanayaan waqof waxba ahayn laakiin dhinaca Ilaahay wuxuu ka leeyahay qiimo aad u weyn oo sabab ka dhigtay Quraanku uu ku xuso mowqifku istaagay waxa jira Quraanka آيات كلا إلهي وحيري بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحين صدق الله العظيم نينكا سوايو نينكن نفتيسا ينولشيسا خطر قليه سو النبي موسى نصيحة أصيو وكورا كبح مقالة دوالو قدليا نينكن واكما
القرآن كوشاقي إلهي سبحانه وتعالى سورة ياسين وحئري بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العظيم نين ميل فك إيمي أو قوم كيسو إيمي أو كويري إلهي كسو نقضى أو دين تقاطع أو أنبياء أن دين إيمي مقلع دعودي إدين كانان ninkaas waa kuma waa nin u huray naftiisa daraada nasteexadan ilaahay dartiisa oo dadka uu siinayo waa nin oga inuu dhimanayo oo ka bacdina naseexadan uu sheegana dhintay ilaahay magaciisa muu sheegin sidoo eegi garamayno wuxuu yahay garamayno laakiin dadkaas aan magacood aanan garanaynin haddana quraankan ku akhriyayno ilaahay magacooda xikmad uu ogii buu qariyay dadkaas waa dad fara badan dadka dhex socda oo aan la garanayn oo qarsoon oo aamusan laakiin dhinaca ilaahay qaaliga ah oo dhinaca ilaahay ka culus oo miisaan culus leh qofkaas ama dadkaas waxay noqon karaan aabahaga guriga jooge wuxuu noqon karaa walaalka wuxuu noqon karaa jaarkaaga wuxuu noqon karaa xataa adigu noqon karaa qof kasta oo noloshiisa aamusan oo qarsoon tahay noloshiisu qof kastoo ana followerska intuu leeyahay ana qiimo siinayn qof kastoo sawiradiisa cuntadu cunay Instagramka iyo Snapchatka ana soo dhigaynin qof kastoo dhar qaaliga iyo gawaadhidu wato ana ku faanino meelaha soo dhigdhigi karin oo ana sawiraynin qof kastoo caruurtiisa iyo gabadhiisa ana dadka u soo bandhigi karin qofkaas ayuu noqon karaa nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis wuxuu yiri rubba ash'atin aghbar madfuu'in bil abwaab law aqsama ala allahi la abarra صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري نبا أركيسان تمحهم تميسو عولين دركيسو حميين هدو البابد استاغو ددكو البابد أي كعلين وقولي إريايو لكن هدو قعنتي سكر وقادو إلهي وبريو إلهي دعاد مركبوك أقبلا قفك زوحيا قفك سوى أنا أفير سنين دركيسا وددك دحسو عنايا والشكل قسو ددك أنا كأنو كسو عنين ددكو ألغيا بإني إريان وقيمة أنا يسينن تاس وحي دبتا أي تهينو كتر تمنو أم وحي حقيقي ay jiray ee u baahan inaan ku tartanno dhinaca ilaahay inaan qaali ka noqono laakiin ma aha intan followers iyo intan like aan haysano ilmada Umar indhihiisa ka timi been ma sheegayso nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markuu xadiiskan uu sheegayna ma kaftamaayo shukooyinkan quraanku ilaahay nooga sheekay dadkan qarsoon ma ha sheekooyin caruurta nooga sheekayna habeenka intaan seexan dadkaasuna waxay i bareen shilinka xalaalka iyo dhibicda dhididka ee ka imanaysa wajigayga in ilaahay dhinaciisa ay ka karaamo badan tahay oo ka sharaf badan tahay oo ka qaalisan tahay oo ka ajar badan tahay milyan like aan helayo iyo milyan share iyo milyan followers oo aan helayo waxay idinkan idin tahay waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh